Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Midkan adduunka ka tagayow sahay qaado eraya mudan in dahab lagu qoro. Naadimka waxa uu leeyahay daartii baan su'aalay. Daarta waa adduunkii baan su'aalay iyo daartii iyadoo ii waramayso ii sheekeynaysa. Markaas waxaan ku iri ahbaabtii iyo saaxiibadii aabay maxay sameeyeen. Markaas waxay ii tiri qoomkii iyo dadkii maalmo ayay nagaadeen, maalmay joogeen, intaa kadibna way tageen. Adduunka maalmay joogeen, labithna yawman aw ba'da intaa kadibna way tageen. Markaas waxaan ku iri xagee baan ka raadiyaa, xageysa degeen. Adduunkii haday ka tageen oo maalmo ay joogeen, intaa kadibna ay tageen, xagee baan ka raadiyaa, xageysa degeen. Markaas waxay tiri waxay degeen qubuuraha. Ilaahay baan ku dhaartay waxay sameeyeenna way la kulmeen. Qubuurihii bay ku dhamaadeen. Ilaahan ku dhaartay waxay sameeyeenna way la kulmeen. Qubuurihii marka ay galeen oo camalkoodii ay la kulmeen, waraaqoodii iyo suxuftoodiina waxa ku sugan ficilkii xumaa ay sameeyeen iyo simbirixsigii xumahoodiina wuxuu ku sugan yahay waraaqahooda. Isma canaananayaan meel loo laabto iyo wax la xeeladeystaan uma sugna. Waxay isku canaananayaan laana waxay soo shaqaysteen, godkii bay la soo galeen, adduunkiina way ka soo tageen. Meel loo baxsado, meel loo dhuntana ma sugna. Qubuurahooda baa waxay ku heleen shalayto iyo nadaamo iyo walwal iyo walbahaar. Maxay ka deeqi iyagoo wixii soo kasbaday, iyagoo camalkii xumaa soo shaqaystay oo maanta la soo galay qabrigooda. Talow shalayta maxay ka deeqi inay shalaytoodaan, talow maxay ka deeqi. Qalbiga ka leexaha oo yadhiig ilinta ishana waa midii kamiin waraabaysay uda. Ilinta isha ka socota ha ka kamiin waraabta uda, ha cabta biyahaasay uda isha. Qalbigana ka leexo dhiig ha ooyay u bani qalbigayga. Waxaan arkaa cumrigaygii inuu tagay, cumrigaygii waa tagay. Da'daydiina way sii dhamaato, way sii socotaa. Da'daydii waan soo oofsaday, intii la ii qadaray waan soo qaatay. Waxa ii muuqata in cumrigaygii uu dhamaaday, xilligaygiina uu tagayo. Isaga tag adduunka in lagu dadaalo, nolosha adduunkana xaqiisa ha jeclaani. Marna ha damcin nolosha adduunyada ay isaga tag in adduunka lagu dadaalo. Maalka iyo hantida ha kulminin, lianna ma taqaanid qofkaad u kulminaysa. Maanta waxaad shaqaynayso, waqtigaaga inta badan, dadaalkaaga inta badan uu maanta kaaga baxayo. Maalka ha kulminin, lianna ma ogid maalkaasi cidaad u kulmin ee maalka ha kulmin. Arsaaqada waa midii la qaybshay, Allah qaybshay subhanahu wa ta'ala. Malaha xunna waxba ku tari maayo. Malaha xun iyo in adiga aad aaminto hadii aanan shaqayn gaajan u dhimanaya, gaajan la baqtinaya. In adiga aad arsaaqadii helitaankeedii aad malahaaga ku xumayso, arrinka ku anfici mayso. Arsaaqada Allah ku qaybshay subhanahu wa ta'ala. Mid kasto adduunka ku dadaalo waa faqiir, mid kasto adduunka ku dadaala waa faqiir. Mid kasto qanca oo ku qanca wixii loo qadarayna, midkaas waa mid deeqtoon oo hodan ah. Allah subhanahu wa ta'ala hodan uu ka dhigay. Kaba soo qaad in adduunyada ay ku iman, waan shaqaynaya, waan ordaya, wax baan qabanaya. Kaba soo qaadba in adduunyada ay ku timaaday. Kaba soo qaad in adduunkii lagu siiyay gebi ahaantiisa. Kaba soo qaad geeri midii ku imaanaysa ma aha miya? Geerida tii ku timaada ma aha miya? Xitaa haddii adduunya lagu siiyo, midkan adduunka raadinayo oo adduunkaas u dhibaatoonayo, isaga tag adduunka, arrinkaaga uga tag adduunyo. Wuxuu Allah kaaga qadaro subhanahu wa ta'ala ka qaado ee adiga ujeedkaaga ha ka dhigin adduunyo. Midkan adduunka dalbayo raadinayo, adduunka uga tag adiga arrimahaaga. Ya Rabbi subhanahu wa ta'ala wuxuu ku qadaray. Adduunka maxaad ku sameynaysaa? Adduunyada maxaad ku sameynaysaa? Adduunka waxaaba kaaga filanba harka wareegiisa, laana harkaaga iyo hooska hadda wuu joogay, saacado kadibna waa wareegay. Adduunka waa sida harkaaga oo kale, ama waa sida riyadaada oo kale. Marka adiga aad riyooto ee adduunka iska daa, maxaad ka fali? Waa sida harkaaga oo kale, wayba kaa tegi. Fahan wixii lagu abuuray oo arrinka xaggi u sahay qaado. Xilliga siduu kaaga qosliyay sidaasoo kale buu kaaga oohin doonaa. Maanta haddii aad qosasho oo maanta adiga aad farxdo, sidaasoo kale ogow in xilligaasi uu kaa oohin doono. Marka yaa akhi oo ukhtii, aan u sahay qaadano maalinku Rabbi subhanahu wa ta'ala inoogu yeeray iyo maalinku Allah subhanahu wa ta'ala inoogu baaqay. Midkan adduunka ka tagayo sahay qaado, u sahay qaado Allah subhanahu wa ta'ala la kulankiisa. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الله inoo tilmaamay soo sahay qaata, sahay la soo qaata waxa ugu khayr badan Ilaahay subhanahu wa ta'ala cabsidiisa. Allana wuxuu inoogu daray iga cabsada kuwa caqliga lahow, iga cabsada. Caqli haddii aynu leenahay aynu u sahay qaadano Ilaahay subhanahu wa ta'ala la kulankiisa iyo Rabbigana xaqiisa waxa inoo hormari. oo Rabbi subhanahu wa ta'ala uu inoo miisaami doono ruuxii arrinka qalbigiisa ku haya. فقد فاز فوزا عظيما. وجزاكم الله